kulanti wanaagsan dhammaanba akhyaarta hawada naga daawatay halkani waa telefishinka caalamiga ee Royal Studio uu ku leeyahay magaalada Geneva ee wadankani Switzerland. kusoo dhawaada daawadayaal barnaamij gaar ah oo aan idinka diyaarinay booqashadii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed oo kusoo gaaray dalkani Switzerland gaar ahaan magaalada Geneva. kadib markii uu soo gaaray ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed magaaladani Geneva waxaa loo sameeyay xaflad ballaaran ah oo lagu soo dhaweynay ra'iisul wasaaraha iyo wafdiga uu hogaaminayay. guud ahaan jaaliyadaha Soomaaliyeed ee wadanka Switzerland oo isku duuban ayaa soo qaban qaabiyay sida aad aragtaan xafladani oo ka dhacday magaaladani Geneva ee wadanka Switzerland. xafladani waxa ay u dhacday sida tan: dhammaan marti sharafta caawa halkan isugu timid odayaasha, wiilasha dhalinyarada ah, hooyooyinka, gabdhaha Soomaaliyeed ee halkan jooga ee ku kala nool dalka Switzerland iyo gobolada iyo magaalooyinka u dhadhow, kulligiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka ah. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. waxaan caawa halkan ka ahay xiriiryaha barnaamijka. inta taqaanana way taqaan, inta kalena waxaa la yiraahdaa Farxiya. waxaan deganahay magaalada Geneva. hadda waxaan barnaamijkeennii u gudbinayaa oo noo hadlaya xildhibaan Axmed Jaamac. waad mahadsantahay Farxiya. assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. marka ugu horeysa waxaan salaan aad u diiran kusoo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraheena Dr. Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed iyo booqashadan taariikhiga ah ee uu kusoo gaaray dalka Switzerland caawana magaalada Geneva uu inagula joogo. waxaan kaloo salaan aad u qiimo badan kusoo dhaweynayaa safiirkeena Soomaaliya u fadhiya dalka Switzerland mudane Yusuf Maxamed Ismaaciil Baribari. waxaa halkan sharaf ii ah caawa inaan kusoo dhaweeyay iyaguna xildhibaanadii dowladda federaalka Soomaaliya oo hawl culus qaranka Soomaaliya dalkii uga wada. caawa aad iyo aad baan u faraxsanahay sababtoo ah waxaan halkan uga jeedaa jaaliyadii Soomaaliyeed ee goboladii dalka Switzerland oo dhan iskaga timi iyadoo waqti badan ka hor aynaan isqabqaabin oo istiyaarin, haddana daqiiqadii u dambeysay la yidhi lama kala haraye ha la isu soo gurmado. marka kulligiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin. annaguna waan ku faraxsanahay haddaanu reer Geneva nahay inaanu idinku soo dhaweyno xafladana aynu wada qabanqaabino, aynu kusoo dhaweynayno ra'iisul wasaaraheena oo booqashada taariikhiga ay noogu yimi. ra'iisul wasaare saad la socotidba dalkan Switzerland waa dal federaal ah, wuxuu ka kooban yahay 26 gobol. maanta annagoo qurba jooga waxaan horta ku faraxsanahay inaanu halkan dowladayda kusoo dhaweyno, aanuna caawa la wadaagno ama kala tashano aayaha iyo mustaqbalka dalkeennii Soomaaliya. sababtoo ah waxaa la wada aaminsan yahay oon aaminsanahay inay dadka halka joogaan ay la qabaan in la wada dareemay in dalkii hooyo loo baahan yahay. waxaan halkaan maaragtay aad iyo aad farxad weyn ah inaan kusoo dhaweyno ra'iisul wasaarahayni oo booqashada taariikhda noogu yimid, oo aad iyo aad inkastoo nagu yar tahay ziyaarayaalka dowladda tanna ay noo tahayba hadda haddii dowladii madaxeedii uu noo yimidna too farax zaa'id oo aad iyo aad noo kordhay. anigoo Abubakar Mudee Cabdi oo ka socdo Canton Berna shacabiyaalkii badan ay yimideen, waxaan aad iyo aad u farxnay in aan maanta aan nahay dad isku duuban jaaliyada Soomaaliya haddaan nahay oo aad iyo aad u jecel dowladeeda una jecel inay maaragtay kaalintooda iyo kasoo dhaxaan. waxaan ra'iisul wasaare aan kuu sheegaynaa
إن جاليدي لنا آدي آد يقول ده شيء أي ما عرفتي أنت تاكتو ده الدولة نسبتها ما عرفتي كل رجلسي أيضا إن مشروعيات بدل إن كسميان إن ما عرفتي درك وحنا خبطان آدي آد ناقش غير الشريعة بدلنا على يلاني أيضا آدي آد نوجي سيدم كليين تاس نوقف بشارنا إن جاليد أصدرك اللوبين كشقيدين ويدرك الأتاجيين. هذانا أنا جالية سويسرلاند وعن تاجرنا هاي سوماليا إن نمط كذا عضو إن هو مركبته تيرر كان ورشة وعن تاجر سنة دولة نمط نبضة يوم من نمط وسيدا تير هو وين Soomaalidu inta badan way ka sheekaysaa nabadda waxa jiri waagi hore heesa la qaado la jiray waa qaali nabadiye nin qumaati ugu liday oo qushigi u meel maray idinkuba qiyaasay hadii aan qaraar jirin miyaad qiri lahaydeen waxaan idin leenahay gacmo furan ku soo dhawaada waxaan kaloo diyaar u nahay hadaan nahay jaalidii Soomaaliyeed ee qurba joogta ah inaan dawladeena qiimaha ay qaayaha leh gacan siino waxaan kaloo halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa mas'uuliyiinteena madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamed Sheekh Xasan maadaama uu ra'iisul wasaaruhu socdo asaga naga goyn doona dareer Switzerland dilnahay hambalyo marwey mudanayaal madaxda sharafta leh oo ugu horeeyay wasaaraheena dalka Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Maxamed Axmed safiirkeena dalka Soomaaliya Yusuf Maxamed Ismaaciil Barabari iyo madaxda sharafta leh la socotay wasaarina marka hore waxaan ugu salaamayaa salaanta qaaliga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudane wasaare waxaa sharaf caawiya inaan salaad baahad weyn kaaga wado xubnaha jaaliyadda Basel iyo ururka daryeel nabadeynta iyo horumarinta Soomaaliya waxaan rabaa wasaare inaan kuu sheego nin gurigiisa gubanaayo fadhi uma yaalo wadankeena 22 sano dagaalkii ku jiray dibkii wadaagayeen anagana dibaddu nagu haystay waxaan maanta diyaar u nahay haddaanay Soomaalida Swiss-ga degan anagoo isku duuban inaan dawladeena garab istaagno inaan wax la qabano meeshay ka qaldantahay inaan toosino waxay ku saxsan tahay inaan la garab istaagno shayga kaliya lagu heli karana waa midnimo waxaa sharafi kale ii ah waxaan soo xasuustay maalintii la dooranayay Obama xaaskiisa waxay tiri waxaan iskula weynahay inaan Mareykan waxaan leeyahay waxaan iskula weynahay inaan jaaliyadaha Swiss-ka ka mid ahay qayb weyn ka qaadanayo markaan arkay iyagoo isku duuban waa taariikh markii ugu horeysay waxaan mar labaad ku soo celinayaa mudane wasaare dawladdeena garab taagannahay diyaarna aan qaybteen inaan ka qayb qaadano wixii xaqa iyo waajibaadba marka waxaan ka codsanaynaa dawladdeena inay nagu garab istaagto meesha anaga ka taagannahay dhammaantiin waan salaamay dhammaan dadweynaha oo meeshan iskugu yimaaday waa la iswada yaqaan aniga magacayga waa Axmed Naaji ururka reer Geneva la dhaho oo 2005 la dhisay ayaan madax u ahay waa dhalinyarada isboortiska iyo ka hortagga cudurrada ayaan rabaa inaan ka dhaho saddexdaas eray oo ah horta dawladda dhiiqo ayay lugaha kula jirtaa markasto ninkii meel aado waa la soo reebaa inay hor u socoto ayaan ilaahay uga tugaa talabaad dawlad waxaa ka horeyso caafimaad ummadan oo dhowr 20 sano aan wada degannahay waa la iswada yaqaanaa ilaahay horta daawo ilaahay ha siiyo basko dadku way jireen ilaahay waxaa uga tugaa kabsal oo dawladda dhiso inuu siiyo mudane ra'iisul wasaare martida sharafta leh safiirka wadanka Switzerland xildhibaanada wasiiradii hore mudane yaal marwey السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها فرحان وينيا أنا قيب قادنا يا عاود كنا هذا هي مجا جالية قبل كان كسر جيدا نشاطين خاصة المجالات الرشاطون
inaan halkan kusoo dhaweyno ra-iisul wasaaraha naga waddanka Soomaaliya mudane Cabdulla Sheekh Axmed. Hoyalay 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 hoye Allah hoye hoyalay hoyalay hoye Allah hoye hoyalay hoyalay hoye Hoyalay xalay ban hordada gami waye goray dadku sicdeen ban guxla soo kacaye gulahay waxaan baryo ilmada kaba kasiyaba gabal dhacay Soomaaliy guuldaraadeega garwaaqsigiiyo haddii la waayay gurti waada joogto gayigana gubanayo waxaan gusha ku fanayno garabkeenna weeya dowladahan isiri gusha waada gaara gobol gobol inaynoo xukumaan sagunima maahan celinaynaa kaalinta uu gacanta ka qabtay fanka iyo dhaqanka Soomaaliyeed mar labaad anigoo ku hadlaya afka fanaaniinta Soomaaliyeed afka waabari iyo fanaaniinta Swiiska guud ahaan waxaan ra'iisul wasaare kaaga mahad celinaynaa aaskii sharafta lahaa quruxda badnaa ee qaran ee aad u samaysay halyeygii qaranka Soomaaliyeed boqorkii codka Maxamed Saleebaan Tube hogaamiya daacado diiran baan rabnaa Soomaali kala durugtay isugu doona baan rabnaa dibna isugu keeno dadashaan rabnaa dhulkeenu waa weeyaho dheeman baa ku jiro dhalinti dhaxalku lahayd baa ka dhoofayaan badaha ku dhammaadaya ko dhibaato qaabin dhalinta dhammaatay waa inaan ka dhiidhinaa dhalinta dhammaatay waa inaan ka dhiidhinaa dhaqaala loo helayo wadaha ko dib loo dhisaa hadsan tahay dhammaan xildhibaanada maamulada jaaliyadaha iyo wasiirkeena ra'iisul wasaaraheena safiirkeena beriberi oo ah ninka dhibaatada ka saaray Switzerland jaaliyadaheeda aadna wada ogtihiin dhalashada warqadaha nikaaxa dadkoo wada dhibaataysan asaga iyo kaaliyihiisa Professor Xuseen Cabdi Muuse Mayow oo aan leeyahay aad u mahadsan yihiin wadada cad ee noo fureen marka qofka markuu hawl qabtane waa loo mahad celiyaa wax isu quur aan lahaano haddaan Soomaalinahay calanka Soomaaliyeed oo cashiga ka nuur cirkaadu weegtahay rabbi iyo laga cabsado kuwii ku caawimi lahaa kama caajisa asaybay dumarku qaadeen diraac walbaba oo deeqsigii qabaynaha badaleel ku cunay waryaana loo daarina Soomaaliyeed هذا أنا هم فكرة أن أشيء لها أمة الصوماليين مدحنا الصوماليين إنك كل أسكو قبيلتنا صول ما كان وين أن أورعنا وفين وبيج ماشي قدام هي هذا أورعنا وحلاقي يا إن أتحوجا كبد لكن ماشي وكإيمان هي هذا أورعنا والمتفه قبيلتنا صول ما كان وين فكرة كان أنا هذي اللي أورعي هذي كله نفس اللي استاذ رعسينه حاجات دقا قبيل هبل قبل كيد دقا وحود دقا هيران انتس هذا مسؤول كأنه بتقليد هيران حدات صحي ويدو اتمينس وحكافي عن قبيل كدقو محلها إيشك شوال هذا دحي وناجيه قبل كيس قبيل كدقو قدو أدو صوص أدو قدنا بتكدقوه يعني والترتنسينا واللي بالنوبل برايس على الكنسينا قبيلة أفريقيا بدوي بس محتري بلاصة بس ماي
بسم الله الرحمن الرحيم باشرت والله يوقع على يقرأ هذا runtii caawo farxadeeda lama soo koobi karo dad aan is arkay 40 sano meesha waa isku aragnay waa arkaysaan yani marka waxaan rabaa wax yar mar rabo inaan ku dheeraado anaa rabaa inaan iska hadlo horta gabadhaas dheer oo qurxoon Allah is amaanayo waa dhaawacan tahay xamra ku soo dhaawacmay haddana xamra ku socdaa taas marka waxay ila tahay bishaaro weyn waaye wadanka waa noo hagaagay kelmadda ugu nabcahay nolosheeda waxa qof markuu ilaahay meeshii ma ku naqanaysaa adiga ninkii la socday horteed ku gogoy waa dhintay laakiin beesha oo meesha sarsaro beesha inaan ku galo gabdhaha walaalahay way soo codsan halka inaan ka hadlo waxaan rabaa inaan runtii aan ka codsado wadankaas waxa dhisay gabdhaha ahaa markii hore haddana dawladda sharafta loo horeeyay wasaaraha qaaliga hogaaminayo annaga horseed u ah marka waxaan rabaa wax wadanka ku dulman oo dhibaataysan anagu way because shabaabka anaga dhalnay ra'iisul wasaaraha anaga dhalnay marka iraan ka wada gidigeena ma arkaysa nafta maalin ay bixaysa ama UK joog ama Mareykan joog annaga hadii aan nahay gabdhihii Soomaaliyeed waxaan isku dhaarsanay la dagaalanka shabaab muqaddis way waa naga go'anta annaga because shabaab adigana kuma rabo madaxweyne ma rabo ra'iisul wasaare ma rabo isaga ma rabo hatta ma yaqaan wuxuu u socdo hadii kala mudaqaale maxaa galabsan anaga maatiyana masaakiin aan wali dumar nahay maxaa la qarxiyay aniga waa maxaa qabar loo dilay dawladeena ma taqaana adduunka maanta waa laga aqoonsaday si fiican ay u shaqeynaysaa ummaddu waa ku wada farxsan tahay goboladii waa la dhisayaa xogaa yar hadda waxaa noo soo baxo waa in lagu mashquulo waxa la maamul goboleed nin walba wuxuu leeyahay litafade ana sadiifade taas marka kulliga inaad soo horjeesnaa mashquulin waay Soomaaliya ma taqaana hal hotel oo Japanka ama Chinese noo dhis ayaa lagu filan lagu dhanba marka annaga roo in lagu mashquulin waay waligeed ma taqaan caaw waxaan maqlay halkaas in kasto community fiican yahay dhowrka oo ma taqaana community oo la leeyahay magaalada hibil laga mar halkaas laga imaaday hadda marka mashquulkaas ayaa lagu jira oo roo ummadii in la iska horkeeno oo la hadda anaga digil Briefland ahay jawl loo madaxweyne leenahay mid kale saddexaad oo soo sugeynaa marka taas naftirkeeda inaad ma taqaana odayaashii Cabdi Muuse oo caaw u jeedo odayaashii ugu horeeyay iyo Abubakar Mudde oo runtii waa marayga weyna waa iga weyn xogaa laakiin inta tiriga waxaan soo joogaa sababa dadkii oo shirka oo ka soo qayb gala ahayn dadkii oo safka u horeeyay noogu jira Abubakar kaalin fiican runtii ka soo qaatay ma taqaana maanta dadka oo hoos ka harsanayno ragi ka soo shaqeeyo Abubakar oo ka mid yahay ma haddaas idinka tigna sharaf idin taa rabaa inaan hortii ka caddeeyo waxaan filayaa reer Janeebo xogaa markii loo fiiriyo UK safiir ma bahaysana waa loo magacaabo runtii laakiin waxaan rabaa walaalkay Barbari ilaa Ibaydhawo wasla joognay markaas wasiiran meesha ka ahaa runtii nin taf ah yaa inuu yahay oo active ah wax badan sameyn karo oo campaigner ah meelaha maanta laga xukumayo inta Soomaali qabiil ku baabaaday arrinteeda siyaasadeeda waxay tahay wax run ayaan sheegaa waxba ma taqaana ma fiiri meelaha wadanka laga xukumayo ka mid tahay marka waxa idin ka codsanayaa safiir idin qalmo ayaad haysataan tii qabiilka iloowo inaad ka faa'iideystaan marka isaga habka weega casuba aniga anoo wasiir weega casuba anoo xildhibaan weega casubay runtii nin taf oo mudaqana wax badan sameyn karo way because meesha adduunka laga maamulo magaalada idinka joogtaa way marka Barbari wuxuu shaqeyn karaa markuu idinka hela garab laakiin wuxuu ma shaqeyn karo tan qabiilka marka iska ogeeyay marka meeba si la ilaahay roob liishan baad halin aqriya wadanka ilaahay nidiji ولو دو ما يبقى مباهنا عروته ودك صدعين باهي جيكور بيني رجلي ترى صوماليا يوجي بهجا بس ولا يقدر يسكت صوماليا هذا مركب ميل نوف راسي بس ميل نوف راس انت لو دعاء شريس جيك بس هلي عيدن هلي ولا يور دم عليه اسكفلنا دولة اسكفلنا تي أنا قاس رئيس وزراء متقنا عصي ماشي ده انتي صوب خير قلا اسمه ودك مركب أول دس دولة دولة متقسمنا انتي كفاية يستوى marka ilaahay qeyr la si ilaahay wadanka ma taqaana ii sheegay umada qalbisha ilaahay nasfuro isagoo ducay wadankaas ducada dambahay hadii isagoo ducay tan hagaagay marka wabillahi tawfiiq eeda ma zaray xildhibaanada sharafta leh
xildhibaanadii wasiiradii hore aamino dhammaantiin waxaan idinku salaamahayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mudane ra-iisul wasaare, sida hadaaya aduguba maqashay run ahaantii waa marka ugu horeysa iyadoo sidaa loo wada dhanyahay Soomaaliya meel isugu timaad, gaar ahaan Soomaalida ku nool dalka Switzerland. waa guuli farxad weyn oo inoo soo hoyatay. run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay intiinaan oo dhan inaan caawa halkaan isku aragno. mid baan jeclaan lahay inaan wada salaamo, laakiin waqtiga inuu saamaxi maayo. waxaan sidoo kale si gaaran aad iyo aad ugu faraxsanahay imaatinka ra-iisul wasaaraheenna. weliba waan doonaya inaan si gaara uga mahad celiyo, sababtoo waxaan ogahay howlo uu wuxuu ka soo tagay runtii aad iyo aad u adag, isagoo tixgelinaya si gaar ah mustaqbalka dhallinyaradeenna. sababtoo ah shirka u yimid waxa weeye shir caalami ah. jaaliyadda sharafta leh reer Switzerland aad baan idin salaamayaa salaamta islaamka. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan aad idinkaga mahad celinayaa soo dhaweynta diiran oo walaaltinimo oo qiirada ku jirto oo aadna soo dhaweysteen aniga iyo wafdiga ila socda. taasoo runtii waxay noo tilmaamaysaa sida aad dalkiina u jeceshihiin, leanna anagu dalkii baan ka nimid, dalkii baad naga urinaysaan. marka waxaan idiin sheegaynaa oo idiin sheegayaa dalkiinuna inuu sidaas idin jecel yahay oo idin tirsanayo, aada idin tirsanayo. intaas markaan ka soo gudbo, waxaan aad sidoo kale ugu mahad celinayaa fanaaniinta runtii qiirada nagaga ilmeeyey oo runtii na xusuusiyey anagoo mar walba dalka ka nimid heesaha ay qaadahayaan oo ay noo qaadeen caawito waxa dalkeenu yahay, qiimaha dalkeenu uu leeyahay iyo qiimaha calankeenu uu leeyahay runtii na xusuusiyey oo qiirada weyn ugu beeray. oo reer Geneva iyo reer Switzerland runtii ay ku faani karaan, ayagana aad baan u mahad celinaynaa. waxaan ka nimid dalkiini, waxaan ka nimid dadkiini. awalan salaan aan madaxda iyo xildhibaanada iyo xukuumadda Soomaaliyeed aan idinka soo gaarsiinahay naga guddoona. waxaan halkaan u nimid howl qaran oo runtii mahaddeedu uu leeyahay safiirkiina idinla jooga oo isku soo dugay, oo runtii aan rajeynayno halganka weyn oo aan ku jiro in ummaddeena nolosheeda aan wax ka bedelno, inay qeyb weyn ka qaadan doonto oo ka noqon doonto haddii alla idmo. shalay iyo maantaan idinla joognay. shalayta halkaan aan u badnayn oo runtii shirar muhiim ah aanu ka qeyb galnay oo aanu ka hadalnay heshiisyo runtii muhiim u ah xiriirka aan la leenahay caalamka iyo shaqo abuurka aanu rabno inaan dhallinyaradeenna shaqada u baahan aan shaqo u helno. wax weyn ka taraya ayaanu shalayto hawsha iyadu ahayd. maantana waxaanu la kulannay dowladda Switzerland oo magaalo madaxda aanu tagnay. kulliga madaxweynaha ismaana arag, laakiin wasiiru kharijiye iyo tiim la socday baan is aragnay. waxaanan aada uga wada hadalnay xaaladda dalkeena maanta taagan yahay iyo sidii aynu xiriirka bilateralka ee labada dhinac
naga dhexeeya aan u xoojin lahayn. نسيجي حرية لتكي كعام بحور ولا إلا مربط قرنا بسوعي كوداني سيدا عروتيو وبحردنا عفي ضمتا الله يهو بلوكي تكتا عطانكي إحتكا عبيرانتي نسيجي حرية لتكي كعام بحور ولا بالله مربط قرنا بسوعي كوداني سيدا عروتيو وبحردنا عفي ضمتا وعسيقاقي فكرة علي عكوي بفوري دك وضع عقار نقول عولاد لك خيوبا إن شاء الله مرة قرروا ربي سوعي لتودتاني سيدا عروتيو وبحردنا عفي ضمتا وعسيقاقي فكرة علي عكوي بفوري دك وضع عقار نقول عولاد لك خيوبا إن شاء الله مرة قرروا ربي سوعي لتودتاني سيدا عروتيو وبحردنا عفي ضمتا شائما عليو علنكو إذ عليو لقى السيء عليو عدكابو شقين عليو عربة دابنا عليو شيطانك عميرا عليو عيني الصبح عليو عينك بكتن عليو ومجهل بنيمو مكمارتان مامو دولة نيمو مكمارتان نودا معاني مكمارتان اسكرب سلام يدكتاي قبسلا كلامان بميسان Somalia يدكتاي قبسلا اسولا سلام يدكتاي قبسلا كلامان بميسان Somalia يدكتاي قبسلا guud ahaan intaas ayaanu kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii gaarka ah idinkaga imaanaya Royal TV Switzerland booqashadii ra-iisul wasaare Cabduuli Sheekh Axmed Maxamed ee Geneva anigoo Cabdirashiid Guuraha ayaa barnaamijka idin soo saaray guud ahaan saaxiibada igala qayb qaatayna waan u mahad celinayaa tan iyo barnaamij noocan oo kale dib dambe ugu kulmi doono waa bahda Royal TV Switzerland oo idinka tagaysa salaamullaahi calaykum wa rahmatuhu